jabhadda ONLF ayaa waxa ay guula ka sheegteen dagaalo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Itoobiya iyo jabhaddaasi ku dhex marayay qayb ka mid ah dhulka Soomaalida ee Itoobiya ay haysato wariyaheena qaliyare ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiye ku-xigeenka jabhadda ONLF Cabduqaadir Xasan Hirmoge oo uu ramay Shabeelle ayaa guula ka sheegtay dagaalo ay maalmihii ugu dambeeyay kula galeen ciidamada Itoobiya dhulka Soomaalida oo ay degtay ee Itoobiya maamulato waxa uu sheegay in 10kii bishan ay ciidamadoodu bilaabeen weeraro ay ku qaadeen salgiyo ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya dhulka Soomaalida sida salliga Dudumacade salliga Duufaan oo 20 kiiloomitir u jira degmada Dhagaxbuur lagana difaaco degmadaasi iyo salliga Barcaano iyo salgiyo kale kuwaas oo sheegay in dhamaantood ciidamadoodu gacanta ku dhigeen gudoomiye ku-xigeenka jabhadda ONLF Cabduqaadir Xasan Hirmoge waxa uu tilmaamay in ciidamadii Itoobiyaanka ay la galeen dagaalka ay kala wareegeen salgiyo military oo ay ku lahaayeen dhulka Soomaalida ee Itoobiya haysato iyo hub iyo qalab isgaarsiineed isagoo sheegay in ciidamadoodu sii wadi doonaan hawlgallada ay ku xoreynayaan dhulka Soomaalida ee Itoobiya haysato bismillahirrahmanirrahiim taariikhda markay ahayd 10kii bishan oo habeen hore ahayd waqti dhexe ayaa hawlgalkii loogu magac daray eeda cadow oo ka qayb qaadanayeen qaybaha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeya ee kala ah gorgor oo gacanta ku dhigtay saldhigii gobolka degmada Dudumacade Baabili adeer hoos imanayay oo magaalada adeer u jira 45 kiiloomitir qaybta Duufaan oo saldhigii Higleley magaalada Dhagaxbuur u jira 20 kiiloomitir oo gobolka Jarar oo ah saldhiga laga difaaco magaalada Dhagaxbuur gacanta ku dhigtay qaybta Duufaan qaybta Hanqad oo gobolka Nogob saldhiga laga difaaco xarunta gobolka Nogob ee Fiiq oo ku yaala degmada Xamar la yiraahdo 40 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeedka magaalada Fiiq gacanta ku dhigtay qaybta Birjeex oo saldhiga Boorcaano la yiraahdo oo galbeedka Goday 50 kiiloomitir u jira gacanta ku dhigtay qaybta Danar oo magaalada Galatiid la yiraahdo 35 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka magaalada Qabdaare oo laga difaaco gobolka Qorraxay xarunta gobolka Qorraxay ee Qabdaare u jirta 30 kiiloomitir gacanta ku dhigtay qaybta Heegan oo degmada Yucub oo 40 kiiloomitir dhinaca koonfureed magaalada Wardheer ka ee gobolka Roolo halkaas oo saldhiga gaaleed laga difaaco iyo qaybta Halgan oo saldhiga Gunagado iyo Birqod oo ah saldhigada isku xidha gobolka Qorraxay iyo Jarar ama Dhagaxbuur iyo Qabdaare saldhigada isku xidha oo iyaga loogu talagalay in la burburiyo lagana go'doomiyo gurmadyada falka dagaalkana laga raaro dhammaan hawlgalkaasi loogu talagalay buu dhacay ilaa haddana uu dhacdaa goobihii aan weerarayna gacanta ku dhignay waan burburinta ugu talagalayna waan burburinay qalad aad u badan oo ciidan oo hub iyo taanad iyo saxay iyo logistico iyo qalab isgaarsiineed oo aad u tiro badan oo ciidan gacanta lagu dhigay saraakiil iyo ciidan aad u tiro badan oo la soo tirakoobi doonana waa laga baabi'iyey hawlgalkaasna wuu soconayaa ilaa iyo inta laga xoreynayo deegaanka Ogaadeeya dhammaan goboladan uu ku faafi doonaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan dhulka Soomaalida ayaa la sheegay inay dhibaatooyin u geystaan dadka Soomaalida kuwaas oo isugu jira dil dhac kufsi iyadana halkaas ay kula dagaalamayaan ciidamada Itoobiya jabhada si weyn uga soo horjeeda gubaysiga ay dadka Soomaalida u geystaan ciidamada Itoobiyaanka